Salaamu calaykum saaxiibayaal. Halkan waa kaan kale inaad kaga barateen barashada cilmiga kombiyuutarka noocyadiisa kala duwan. Muuqaalkan insha Allah waxaan ku baran doonaa xiriiriyaasha kombiyuutarka ee loo yaqaano connectors. Xiriiriyaha kombiyuutarka waa qayb isku xirta qalabyada kala duwan ee kombiyuutarka. Howlaha ugu muhiimsan ee ay qabtaan xiriiriyaasha waxaa ka mid ah inay gudbiyaan debka iyo xogta iyagoo marsiinaya kana soo gala kombiyuutarka godadka ku yaala dhinacyadiisa ee loo yaqaano ports ama sockets, kuwaasoo ah godadka la geliyo fiilada keyboardka ama tan printerka. Waxay muhiim u yihiin isku xirka qaybaha kala duwan ee kombiyuutarka, sida qaybta kaydisa xogta ee loo yaqaano storage ama qaybta wax soo bandhigta ee shaashada kombiyuutarka ee loo yaqaano display iyo meelaha ku hareeraysan. Sidoo kale waxay muhiim u tahay inay kombiyuutarka ku xirto qalabyada ka baxsan isaga ee loo yaqaano external devices. Xiriiriyaasha waxaa loo qaybiyaa si guud laba nooc oo kala ah internal connectors, xiriiriyaasha gudaha, iyo external connectors, xiriiriyaasha dibadda. Internal connectors ama xiriiriyaasha gudaha waa fiilooyin ku jira gudaha kombiyuutarka. Xiriiriyaashan way badan yihiin, waxaana ka mid ah xiriiriyaha loo yaqaano SATA ama SATA connector oo laga soo gaabiyey Serial Advanced Technology Attachment. Waxaa loo isticmaalaa in aaladaha kaydinta ee ku jira gudaha kombiyuutarka sida hard drive-yada iyo SSD-yada lagu xiro motherboardka. Xiriiriyaha PCIe ama PCIe connector oo laga soo gaabiyey Peripheral Component Interconnect Express. Waxa uu leeyahay xawaare sare, waxaana loo isticmaalaa kombiyuutarka si loogu xiro qaybaha kala duwan ee motherboardka. Xiriiriyaha dabka ama power connector waxay siisaa awoodda korontada qaybaha ku yaala gudaha kombiyuutarka. Xiriiriyaha socket ama socket connector. Xiriiriyaha socket waxa uu isticmaalaa fiilooyin fidsan si xogta lagu kala wareejiyo aaladaha dhexdooda. External connectors, xiriiriyaasha dibadda, waa fiilooyin ka baxsan kombiyuutarka oo bannaanka looga tallaalo. Xiriiriyaashan way badan yihiin, waxaana ka mid ah xiriiriyaha USB ama USB connector oo loo soo gaabiyo Universal Serial Bus. Waa nooca ugu badan ee loo isticmaalo keyboardka, muuska, iyo qalabyada xogta kaydiya ee ka baxsan kombiyuutarka. Xiriiriyaha loo yaqaano HDMI ama HDMI connector oo laga soo gaabiyey High Definition Multimedia Interface. Waxaa loo isticmaalaa gudbinta maqal iyo muuqaallo tayo sare leh, wuxuuna isku xiraa inta badan kombiyuutarada iyo projectorada. Waxaa jira nooc kale oo qadiimi ah oo lagu magacaabo VGA, balse waayadan dambe waxaa si ballaaran loo isticmaalaa HDMI. Xiriiriyaha Ethernet RJ45 ama Ethernet RJ45 connector waxaa loo isticmaalaa in lagu kala wareejiyo xogta u dhaxaysa kombiyuutarada, routerada, iyo qalabka kale ee network-ga ama shabakadda. Xiriiriyaha audio ama audio connector waxaa loo isticmaalaa si loogu xiro qalabyada wax lagu dhagaysto sida headphoneska, earphoneska, makrofanada iyo sameecadaha. Muuqaalkayna maanta halkaas ayaan ku soo koobayaa. Fadlan haddii aad ku cusub tahay kanaalka waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe inoo saarto, sidoo kale muuqaalkan aad like inoo dhahdo. Tani muuqaalkan muuqaalka xiga inta aan kulmi doona walaalkiin Cabdirasaaq Cabdullaahi oo ku dhaafay sida ay nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.